daawade ma qiyaasi kartaa in hal qof uu cabsi geliyey badbaadada caalamka? Hay'adaha dowladda iyo kuwa federaalka intaba waxaa jiray in lagu magacaabo magaciisa kaasoo loo soo gaabiyo Khashoggi oo lagu tiirsan yahay inuu yahay hogaamiyaha mid ka mid ah kooxaha ugu khatarta badan marka la eego dhinaca hakarka dunida caalamka. Saameynta weeraradiisa waxay gaartay in ka badan hay'adaha caalamka iyo dowlad kasta oo tahay saaxad dagaal. Waxaan dhacdada u kooban aan ku dulmari doonaa dhammaan daqiiqadaha soo socda. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu toobee oo ka mid noqo asxaabta aan halkan ku midoobnay. Quwadaha waaweynka ee UN-ka la geeya arrinkiisa ka dhanka ah hantida madaxiisa la dul saaray hakarka 2010. Dowladda Mareykanka waxay si rasmi ah ay u shaacisay magaca loo yaqaano Khashoggi iyadoo ku eedeysay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay kooxdii qalqalgelisay bangiyada dhexe ee caalamka. Waxay ahayd ururo si heer sare ah loo abaabulay kuwaasoo weeraray bangiyada caalamka. Feelashaas muhiimka ah waxay ku rakaateen jireen haddii ay noqoto bangiga inay lacag madax furasho ay bixiyaan, inay ahaayeen inay ka tirsanaayeen shabakadan ilaa iyo afartan qof oo shabakadan adeegsanaysay kuwaasoo ku midoobay inay dhaxaan bangiyada caalamka. Waxay ka dhigan tahay inuu si degdeg ah u faafiyo targedyadiisa. Haddii aan eegno, ma ahayn hakar caadi ah, waayo waxaa loo sheegay inuu ahaa mid ka mid ah maamulayaasha shabakadan ee ku midoobay 40 qof. Hay'adaha amniga ee dalal badan kuwaas oo isku dayay inay kashifaan howlgal ballaaran oo lagu beegsaday dhinaca bangiga dhexe ee Mareykanka. Su'aashu hadda waxay tahay, ma la qaban doonaa mid weli oo ku dhumanaya meel aan la gaari karin?